السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنت wanaagsan daawadayaal meel kasoo dunida nagala socotaan. waa isniin bisha Mayna waa 16 sanada 2022 qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaanna waxaa kamid ah dowladda Kenya oo war la yaab leh ka soo saartay doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha cusub ee Soomaaliya iyo beeraleyda jaadka ee dalka Kenya oo iyaguna dhankooda ka hadlay doorashadii xalay lagu doortay magaalada Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. kooxda TPLF-tuna waxay war ka soo saartay doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo horeyba hambalyo ugu diray madaxweyne Xasan Sheekh. maxay ka tiri TPLF-tu doorashada Xasan Sheekh Maxamuud? saddex wadan oo Soomaaliya saameyn weyn ku leh oo wax war ka soo saarin wali doorashada madaxweyne Xasan Sheekh loogu doortay madaxweynaha Soomaaliya iyo dhacdooyin cajiib ah oo laga diiwaan galiyay guusha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaan eegi doonaa guud ahaan barnaamijka. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan. soo dhawaada saaxiibe. aan ku bilowno wararka kala duwan ee dunida ka imanaya ee ku saabsan madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xalay loogu doortay magaalada Muqdisho mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo markii labaad loo dhaariyay xilka madaxweynaha Soomaaliya isla markaana taariikh cusub ka dhigay guud ahaan taariikhda Soomaaliya ayaa waxaa warar kala duwan ay uga imanayaan wadamada caalamka oo xiriir kala duwan la leh dowladda federaalka ee Soomaaliya. haddii aan ka bilowno wadamada dariska ah, dowladda Kenya ayaa war ka soo saartay doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. dowladda Kenya ayaa u hambalyeysay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud kala shaqeyn doonaa sii wadida xiriirka iskaashi iyo midka saaxiibtinimo ee labada dal ayaa lagu yiri fariin ka soo baxday aqalka looga arrimiyo wadanka Kenya. waxaana guud ahaanba ay dowladda Kenya cadeysay inay aad u soo dhaweyneyso doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. wadamada Kenya iyo Soomaaliya ayuu xiriirkoodu xumaaday intii uu xilka hayay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo looga inuu halka ka jiray khilaaf xoogan oo u dhaxeeyay badii Soomaaliya oo ay dowladda Soomaaliya ay ku soo kala baxeen maxkamadda cadaaladda dunida iyadoo madaxweynihii ugu horeeyay ee baddaasi geeyay maxkamadda cadaaladda adduunka uu ahaa Xasan Sheekh Maxamuud, balse madaxweyne Farmaajo ayaa dowladdiisu ay guul weyn ka soo hooyisay halkaasi waxaana badii inteeda badan loo xukumay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Kenyana waxa ay muddo dheer ay raadinaysay inay wada hadal siyaasadeed iyo mid hoose ay la gasho dowladda dalkaasi Soomaaliya, balse dowladda Soomaaliya uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa guud ahaanba ku gacan saydhay in ay wada xaajood hoose la gasho dowladda Kenya si loo soo afjaro khilaafkaasi badda. guud ahaan xiriirka dowladda Kenya iyo Soomaaliya ma uusan wanaagsaneyn sanadihii la soo dhaafay, balse waxaa la filayaa in mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha cusub ee Soomaaliya uu xiriirkaasi dib u soo celin doono marka la eego xilligii uu talada hayay oo labadaasi wadan ay xiriir fiican lahaayeen. waxaana la filayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu wadamo fara badan oo xilligan la coloobay dowladda dalka Soomaaliya ee hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay dib u la heshiin doonaan marka la eego galaangalka siyaasadeed ee Xasan Sheekh Maxamuud. guud ahaan dowladda Kenya waxa ay si ballaaran u soo dhaweysay doorashada Xasan Sheekh Maxamuud. dhinaca kale beeraleyda wadanka Kenya ee soo saarta jaadka ayaa si dhow ula socday doorashada ka socota Soomaaliya ee lagu dooranayo madaxweynaha jamhuuriyadda, waxaana guud ahaanba ay beeraleydu kala socotay telefishinada kala duwan ee Soomaalida si ay halkaasi xog iyo wararkii ugu dambeeyay uga helaan. waxaase u muuqata inay dabaaldeg xoogan iyo waliba ay aad ula dhaceen doorashada halkaasi uu ku soo baxay Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo raadinayay isbedel siyaasadeed inuu ka dhaco Soomaaliya si loo furo ganacsigii dhanka jaadka ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya oo uu xidhay madaxweynihii hore mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo guud ahaanba xanibay jaadkii ka imanayay Kenya. qoraal ay ku daabaceen bogga Facebook ayaa ururka ganacsatada jaadka ee Kenya oo magacooda loo soo gaabiyo Yamita waxa ay hambalyo ugu direen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana ay sheegeen inay aad u soo dhaweynayaan madaxweynahaasi cusub isla markaana ay u rajeynayaan inuu shaqo wanaagsan uu ka qabto guud ahaanba gobolka iyo wadanka Soomaaliyaba. waxaanu rajeynaynaa horumar dhan walba ayaa lagu yiri qoraalkaasi iyada oo ay rajo fiican ka muujiyeen isdhexgal ganacsi oo ka dhex dhici karaya wadamada Kenya iyo Soomaaliya. waa sidii hadalka u dhigeen
xasan sheekh maxamuud ayaa ku guuleystay doorashada madaxweynaha isagoo wareegii saddexaad uguna dambeeyey uga adkaaday madaxweynaha xilka haya maxamed cabdulaahi farmaajo. xasan sheekh maxamuud ayaa helay 214 cod halka farmaajona uu helay 110 cod. waxaa codeysay 327 xildhibaan ee labada aqal ee baarlamaanka. guud ahaanna waxa uu sidaasi ku noqday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud. xasan kuma cusba xilka madaxweynaha soomaaliya waxaana horyaala caqabado fara badan oo horeyba u taagnaa xilligii uu xilka ka hayay Soomaaliya. caqabadaha horyaala madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ka mid ah amniga iyo dhisidda ciidan qaran. qaybo badan oo ka mid ah ciidanka qaranka ayaan weli u nidaamsanayn inay amniga dalka la wareegaan, waxaana wadanka ku sugan ciidamo fara badan oo nabad ilaalin ah oo ilaa iyo xalay waardiyeynayay teendhadii ay ka dhacaysay doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo uu isaguba xilka ku wareejiyay. waxaana muddo 4 sano ah oo uu xilka hayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka shaqeynayay dhisidda ciidan qaran oo wadanku yeesho, balse meel dhexe ayuu kaga tagaysa markaana ay wax u mareeyeen. waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud laga doonayaa inuu dhammaystiro waxyaabihii iyo weliba qorshayaashii wanaagsanaa ee uu meesha fiican soo gaarsiiyey maxamed cabdulaahi farmaajo. doorasho qof iyo cod ah ayaa sidoo kale wadanka laga doonayaa inay ka dhacdo. wixii ka dambeeyay 2020 ayaa wadanka Soomaaliya waxaa laga qorsheynayay inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, balse ma ayna suurtagelin. waxaana tan ay dunidu rajeynaysaa inay noqoto doorashadii ugu dambeeyay ee dadbaneed ee laga qabanayo Soomaaliya. madaxweynaha haatan la doortay xasan sheekh maxamuudna waxaa laga doonayaa in uu wadanka gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah. dastuurka dalka sidoo kale ma dhamaystirna, waxaana laga rabaa inuu dastuurka dalka dhamaystiro oo ah sharciga kaliya ee wadanka kala hagaya. marka la eego khilaafka soo kala dhexgala madaxda sare iyo weliba dhibaatooyinka waaweyn ee u dhexeeya madaxda dalka oo ragaadiyay guud ahaanba horumarkii laga sameyn lahaa dhanka dowladnimada iyo dhisidda dowlad wanaagsan ayaa waxaa caqabad ku noqday khilaaf iyo weliba isqabqabsi siyaasadeed oo dhexmara mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee dowladda. si arrimahaasi loo soo afjaro waxaa laga doonayaa in madaxweynaha cusub uu dhammaystiro dastuurka dalka oo qof walba siinaya xuquuqda uu ku lahaa dalka iyo awoodiisu waxa ay tahayba cadaynaya. dhanka abaara xoogan ayaa wadanka ka jira, waxaana guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed inteeda badan ay wajahaysaa xaalad adag oo abaar ah sida dunida iyo weliba dadka Soomaaliyeed ay xilligan aadka u dareemayaan. waxaana madaxweynaha cusub laga doonayaa inuu arrimahaasi hoos u eego, isla markaana dadka Soomaaliyeed ee duruufaha aadka u badan ay ku xeeran yihiin uu hoos u eegi doono oo wax ka qaban doono bal sidii gargaar degdeg ah loo gaarsiin lahaa. musuqmaasuqa sidoo kale waxa uu yahay waxyaabaha ragaadiyay dowladnimada Soomaaliyeed, waxaana madaxweynaha cusub laga rabaa inuu arrimahaasi wax badan ka qabto, iyadoo xukuumadii hore ee maxamed cabdulaahi farmaajo la ogaa inay meel fiican iyo weliba waxyaabo aad loogu hambeliyay ay ka qabatay dhanka musuqmaasuqa iyo ilaalinta hantida ummadda. dhanka kale kooxda TPLF ayaa war ka soo saartay doorashada madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee xalay lagu doortay magaalada Muqdisho, iyadoo aan ogeyn in ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed uu hambalyo goor horeba u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. waxaa haatan hambalyo kale u diray kooxda TPLF oo sheegay in guud ahaanba ay soo dhaweynayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay sheegeen inuu yahay qof aan ku cusbayn saaxadda Soomaaliya ee siyaasadda, isla markaana ay ka rajeynayaan in uu si dhow ula shaqeyn doono xiriir wanaagsan ay la doonaan. waa ka TPLF ahaane guud ahaan wadamada dunida qaar fara badan oo kamid ah ayaa u soo hambeliyay madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud. balse waxaa jira wadamo fara badan oo saameyn badan ku leh siyaasadda Soomaaliya oo ilaa iyo hadda wax war ah ka soo saareen doorashada ka dhacday xalay magaalada Muqdisho ee lagu doortay xasan sheekh maxamuud. waxaana kamid ah wadamadaasi Turkiga, Qatar iyo Imaaraadka Carabta oo aan ognahay galaangalka siyaasadeed ay ku leeyihiin Soomaaliya. ilaa iyo haddana wax war ah lagama hayo oo ku saabsan doorashada Soomaaliya iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud. akhair sharafta leh wada nagala socoto, uu taniyo kulanti dambe nabadgelyo.